qof aad taqaanay oo qaawan oo muluq ah sawirkiisu haddii uu baraha bulshada kaaga soo horbaxo ama qof aad taqaanay oo cod fadeexad iyo ceeb ah laga soo duubay haddii aad baraha bulshada ku aragtid ama guud ahaanba haddaad baraha bulshada ku aragtid waxaan loo yaqaano hebel waa la soo qarxiyay waxyaalahaas oo dhan marka aragtid ha ku degdegin ilaa aad muuqaalka dhamaysatid adiga ayaa yaab arki doona maanta waddanka Spain ayaa waxa ka dhacday maalin dhaweeto arrin argagax iyo yaab ku noqotay dad deganaa tuulo waddankaas ku taala kaliya dadkaas argagax kuma aysan noqonay waxay argagax ku noqotay waalidiin fara badan oo dunida daafaheeda ku kala noolaa 20 gabdhood oo yar yara oo iskuuleeya oo da'doodu ay u dhaxaysay 11 sano jir ilaa 17 sano jir ayaa sawiradooda oo qaawan hadda aysan hal shay qabin waxa lagu faafiyay iskuuladii ay dhiganayeen gabdhahan yararka ah ayaa sawiradooda waxaa laga soo qaatay social media ay isticmaalayeen sida Instagram oo kale lana soco markii ay social media iyagu soo gelinayeen waa gabdhaha yaryare dhar ayay qabeen oo way asturnaayeen sidee ayay wax u dhaceen maxay tahay arrintan argagax leh ee gabdhahan yararka ah lagu sameeyay gabdhahan sawiradooda waxaa lagu qaawiyay app ku shaqeynaya artificial intelligence-ga ama dhakaa al-istinaaciga waxa loo yaqaano waa tiknoolajiyad aad u heer sareysa yacni qofkii oo asturan oo dhar qaba ayaa application-kan gelinaya deedna qofkii buu hal mar dharka ka bixinaya oo muluq ka soo saaraya hadda qofkan waa qofkii aad wajigiisa garanaysay oo halkan soo qaawan dhibka gabdhahan yaryar waxa markii ugu horeeyay banaanka soo dhigay hooyadan oo dhashay mid ka mid ah gabdhaha hooyadan ayaa leh gurigeyga ayaan imid maalin waxaan igu soo orday gabadhaydii yarayd oo naxsan waxa igu tiri hooyo fiiri say ii qaawiyeen hooyooyinka qaar ayaa sheegay in gabdhahoodu aad u walwalsan yihiin oo ay diideen inay banaanka u baxaan xitaa ay diideen inay iskuulka aadaan waan huba qof walba oo idin ka mid ah wuxuu isweydiinayaa war waa ayo cidda gabdhahan yaryarka ah qaawisay ee sidaan u gashay ee dhibaatadan soo gaarsiisay isla markiiba waxa laga yaabaa inaad idinku isku jawaabtaan oo aad istiraahdaan ugu yaraan waa dad IT-ga iyo artificial intelligence-ga ku takhasusay waliba iyagoo adeegsanaya softwares iyo programyo aad u horumarsan ay arrintan ka shaqeeyeen laakiin saas maaha kiiskan waxaa loo soo qabtay 10 wiil oo da'yar oo booliisku ay sheegeen in qaybtood ay 13 sano jiro ahaayeen yacni abka ayay la soo degeen deedna arrintan argagaxa iyo murugada leh ayay sameeyeen dhibaatada kale ee jirta ayaa iyaduna ah in wiilashan aan maxkamad la soo saari karin maadaama ay aad u da'yar yihiin sharcigana uusan qabanayn yacni maanta tiknoolajiyadda wax lagu dhibaateeyo marar badan uma baahna cilmi iyo dad khubaro ah la soco meesha ay arrintan ka dhacayso waa dal Yurub ku yaala iyo waalidiin wax badan ka fahansan tiknoolajiyadda bal ka waran arrintan haddii ay ka dhici lahayd waddankeena Soomaaliya annagoo og yacni faham la'aanta qayb badan oo ka mid ah mujtamaceena ka haysata tiknoolajiyaddan khatarta badan sanadkii hore ayaa waddanka Masar waxa ka dhacday gabadhan yarta oo jeedaan oo magaceeda la yiraahdo Bisnet Khalid ayaa wiil ay wada socdeen wuxuu ka faafiyay sawirro noocaan oo kala ah yacni sawirro qaawan deedna sawiradii baa faafay waalidiinteedii asxaabteedii qaraabadeed bay gaartay gabadhan yarta si walba ayay waalidkeed iyo qaraabadeed iyo asxaabteed ugu sharaxdo hooyo aabe walaale saaxiib aniga sawirkan ma ahi ugu dambeyn gabadhan yacni culayska mujtamaca intay u adkeysan weyday ayay ishay xitaa carabta waxa ka jira dhaqan la yiraahdo jariimatu sharaf oo gabadha dhankeeda haday xoogaa ceeb iyo wax ka timaado gabadha waa la dilaya oo surka ayaa laga goynayaa iyagoo leh qoyska intiisa kale sharaftiisa ayaa la badbaadinaya ugu dambeyn social media haddii aad ku aragtid yacni arrin taagan markaas oo kale cod fadeexad la leeyahay qof yacni sawirkiisa oo la wareejinayo qof la soo qarxiyay weligaa ku degdegin oo go'aan ha qaadan usha dhexda qabo aadna wax ugu fiirso su'aal yar oo kooban arrimahan oo kale Soomaaliya ma ka dhici karaan ba is leedahay mise waaba ka dhacaan hadda